بسم الله الرحمن الرحيم. وحواي مانتا iyo geedaha mid ka mid ah waxaan idin soo gudbinayaa geed yariis oo la dhaho hollyhock. dhererkiisa aad uma dheero, sanadlu u soo baxaa, miraha meeshaan ay ka buuxaan. mirihiisa markay qalalaan saas ay noqdaan fiyoore zaa'id u dhalaa, fiyoore aad u qurux badan oo guryaha hoteelada meel walba lagu quruxsani karo. faa'iidada kale uu leeyahay waxaa ka mid ah in geedkan ay shinnida aad u jeceshahay. waa geedaha ay shinnida aadka u jeceshahay ayna ka samayso waxa la dhahayay raxiiq ay ka aruursataa. saa u jeedaan shinnidii waa taas way ku dhex jirtaa, waxay ka aruursanaysaa maxaa la dhahayay nectarka ama boolenka ku jira meesha si ay u samayso maxaa la dhahayay malab saafi. geedkan Soomaaliya wuu ka bixi karaa, mirihiisa qofkii rabana waa kanaa podcast uu ku jiraa. intaa ka qaadanaysaa 20 xabbo mira ama seed ah ku jira meeshaas. geedkan waa la beeri karaa, waa geed aad u qurux badan. saa u jeedaan waxaa meeshaan loogu talagalay waa beer yar loo sameeyey in shinnida lagu dhaqo. geeda fara badan aa lagu bacrimiyaa sida aa u jeedaan marigold waa geedkan. kulli waxaa loogu talagalay inay shinnida ka qaadato cuntada. waxaan kaloo idin tusayaa wax kaloo la yaab leh, geedka yaanyada xataa. saa u jeedaan waa kana yaanyadii mu jeedaan. geedka yaanyada xataa shinnida waxaa loogu talagalay inay ka qaadato maxaa la dhahay cuntada. waxaan kaloo idin tusayaa magaalada dhexdeeda qafaskii shinnida ay ku jirtayna waa kaas. 2 qafas waaye oo waaweyn oo loogu talagalay beehives ah in shinnida lagu kaydiyo ka bacdina malabka magaalada dhexdiisa loola soo baxo. waxaa loo sameeyay beertan yariiska aad u jeedaan oo laamiga saaran, fiyoorayaashaasaa loogu beeray. Soomaaliya waxaa ka soo bixi karo qofkii gurigiisa ku samaysto maxaa la dhahayay beehives ama sanduuqyadaas lagu kaydiyo shinnida. waa taas haddaa u jeedaan sanduuqaas meesha kore beehiveska lagu kaydiyo malab saafi ah asigoo tukaan aadin meel aadin gurigiisa dhexdiisa ka soo qaatay. waa u jeedaan shinnida sida u bibiiwayso. shinni meeshaan dhan shinniyaa ka buuxda, inaad u jeedaan ma ogi, laakiin shinniyaa biiwayso meesha dhanba. beer yariisa u sameeyeen, waxaa loo sameeyey canab. waxaa loo sameeyey geedo fara badan. geedkan tufaax waaye ama plums. waxaa dhan waa fiyoorooyin loogu talagalay inay shinnida ka qaadato cunto. beertan aa u jeedaan waa beer yar aan weyneyn oo la habeeyey oo la qurxiyey oona yar loogu talagalay 2daas qafas shinnida ku jirto inay cunto ka hesho. waa kana geedihii tufaaxa ahaa, haddana waa kana mirihii ayagoo kalar kale ah. hollyhock Soomaaliya aaduu ugu bixi karaa. waxaanoo dhan waa miro, haddaad u jeedaan waa miro. halkii xabba 20 miraa ku jirto meeshaas. geedahan waa kuwii qalalay oo horreeyay ayakana miraa ka buuxo. saa u jeedaan magacyadooda ma kasaayay, laakiin fiyoorooyinay ahaayeen si ay shinnida ugu qaadato cunto. dhulka lagu beerayna waa dhul aad u yar. waxaa waaye hadday ugu badato
shan shan mitir shan mitir to 20 mitir camal waaye mase 15 mitir waa kana geed kaloo tufaax ah saa u jeedaan magaalada dhexdiisa waaye waa tufaax waa iska goosanaysaa haddaa rabtid waxaa loo sameeyey tufaaxa in laga cuno looma sameynin waxaa loo sameeyey in ay shinnida fiyoorihiisa bacrimiso ay ka samayso malab saafi ah geedkan waa asina fiyooro kaloo qurxan waxaa la dhahaa fushi waa kana fiyoorooyinka way badan yihiin geedo fara badan waaye waa kana miraha ka wada buuxda u jeedaan meeshan waa wada miro way ma jeedaan mirahaas haddii la soo qaado Soomaaliya lagu beero hore ka baxayaan insha Allah waa kana fiyooro kaloo asina qalali rabo oo miro sameyn rabo waa fiyoorooyinka loogu talagalay in ay shinnida ka hesho cunto ama raxiiq ama pollen waa kana geed kale asigana geedaha ugu caraf badan uu ka mid yahay lavender waaye malabka markay kaas ka cunto waxay sameeyni shinnida markay ka cunto fiyoorahan waxay sameeyni malab aad u carfay saa u jeedaan shinnidana aad iyo aad ugu buuxdaa geedkan lavenderka sababtoo ah geedaha aadka u jeceshahayba saa u cunayso u jeedaan geedkan waa nooc basasha ka mid ah maasha Allah tabaaraka Allah waa dhul yar beer yariis lagu sameeyay beertan wax kale looma sameynin waxa loo sameeyay waxa waaye malabkaas in ay ka cunto wax kale looma sameynin qofkii dhul yariis haysto geedahan uu ku abuurani karaa dhulkiisa biyo yar ay kaaga baahan yihiin shinnida sidaas ay u cunaysaa saa u jeedaan meeshan shinniya ka wada buuxdo shinniya ka buuxdo dhulka dhan waa dhul wada maasha Allah waxa inta u jir wax gaaray ilaa iyo dhowr xabo shinni ilaa 10 xabo waay geedkaan ay cunayaan way qaadanayaan geedkaan caraftiisana wax lala barbar dhigi kara ma laha lavender waxa geedkan kan waxaa la dhahaa rosemary asigana fiyooraha wuu ka dhamaaday haddeer marka maasha Allah marka Soomaalida iyo beeralayda waxaan u soo gudbinayaa fikirka ah in la sameeyo beer yar oo shinnida lagu koriyo qof walba iyo gurigiisa malab saafi ah si uu u soo saarto qofka sanadkii in ku filan hal santuuq laba santuuq gurigaada hadda ku samaysatid waxaad helaysaa malab saafi ah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh